waxa weeyaan berigii hore waxa la yidhi guurku wuxuu ahaa inan baa waxa yidhi aabihii buu ku yidhi aabbo labadaada dumaraba gabadhayda ka qurux badan buuri hadaana iga carruur qurux badana maxaa dhacay buuri wuxuu yidhi aabba adna waad qurux guursatay adna waan hidda guursaday buuri adigu inan dheeroo qurux badan oo cas baad aragtood guursatay intood doonatay buuri anna aabba hooyada ilaa aan ogaaday hooyadaa cidda dhashay oon ogaado hooyadeeda kale cidda dhashay oon ogaado cidda aabbaheed dhashay iyo aabbaheeda kale cid dhashay intaa aan ogaaday aabba maan doonin buudhi kolka adna waad qurux dhalaysaa buudhi anna waan hidda dhalayaa dabeed isuma iman karaan buudhi iminka dumarkan meesha alaabta keenay alaabtana idiin sharaxayaan dadkiinna iminku ma yaqaano waxay garan karaanna maaha way hidda dhaqmaya way ku hidda dhaqmeen way hidda arooreen waa dumarkii aad loogu tabcay ee aad loogu dhibtoon jiray waayo waxay ahayd dhaqankeenna iyo hiddeenna hadday haweeneydaas markaa ka xumaato ama dhaafto ayay waxay u ogaa inaanu soo helahayn bu ogaa nin baa naa guursaday kollay inama u dhalay inamadiisa ay dhaleen baa magaalada jooga xalay baa loo soo hooyay aqalkan oo kalea dibadda looga dhisay subixii buu soo saaro wuxuu idhi waan furayaa gabadha waxa la idhi war miyaad waalantahay xalaabad keentee sideed u furaysaa dee reerkoodii baynu isqabsanaynaa noo silciyo waxa aad ku furaysa noo sheeg baa la yidhi adeerayaal wuxuu yidhi waa ogtiin dumarku dhibta aynuu marro gabadhaa shan haloon ku arkay ay tahay baanan u qabayn buu yidhi waa maxay baa la yidhi wuxuu idhi waa gabadh xoolo moog waanay ayaan daran tahay waanay dhaqasho xun tahay waana qubayo waana doqon buu yidhi kow wuxuu yidhi waa xoolo moogto xalay markii day aqalkaa dibadda lanooga dhisay kabahaygii intoon qaadaan aqalka hortiisa dhigay buudhi way xoolo moogto may xusuusanoo ismay odhan kabaha soo xaray buudhi oo xoolo moogaantai halkaasaan ku caddaynayaa buudhi waanay ayaan daran tahayoo waa mid ayaan daranoo kabii may nabadgelina duca waa qaadatay buudhi hadday tahay mid ayaan leh kabahaa nabadgeli lahaa buudhi way dhaqaalo xun tahay buudhi oo dabkii xaabadii bartankay ka saartay buudhi qorigii afka ugumay qabanine xaabadii bay bartanka ka saartay oo mid dhaqaalo xun buudhi inay dhaqasho xunta halkaasi caddaynaysaa buudhi way dabeecad xuntoo way cadhootoo xaabadii way isku garaacday buudhi dhaaradii waxaanay tidhi intay habaartay taadqaadku muxuu la qiiqaya waa qubayoo way la hesho saqdii dhuxun baa daruuri nagu fadhiisatay buudhi oo xalay oo dhan baa noo fadhiisatay aqalkuna ma moosnayn ee aqal cusub buu haawidhoo shalay uula taagay haa xalay oo dhan waanu taagnay buda daadkana dhex yaacay waana doqon ama waa nacas ama waa humo ama waa daman tahay qolo kasta dhowr magac baa loo yaqaane waa doqon ama waa humo ama waa nacasoo waxaan buuhi habeenka u horraysa lama kaadi tago habeenka u horraysaa idhi buuhi ilaa cadceeddu har gaadhaysay way fadhiday buuhi dee dooti la idhi buuhi nin kaliya nugul baa kaadii dishaaye doqonnimadana taasaa caddaynaysa buuhi haddaba intaa maxaa ninka caddibaayey waxa caddibaayey haweenka taasi hadday ka xumaatay ta kale siduu ku soo qabtaa adkayd dumarku ma ahayn dumarkan imbika dumarkii hore waxaa la yidhi saddex baa lagu qabay saddex bay ku beddeleen saddex baa lagu qabaa la yidhi ii dhiiban kuu dhaqee iga dhalan dhunkadee idha'a ku dhagaystee dumarkii hore saddexaasaannu ayaannu ku hayn jirray oo yidhaaheen odayaashii waxay yidhaaheen saddex baad ka daba yimid oo qoladiinna dambe keenteen bay yidhaaheen iga dhalan kuu dhigee oo ilmi kolkiiba la tuuro iga dhal ii dhiiban kaa dhaqdee idhaan dhaqaaqe erayga dambeba isla sugi maysaan ilayn haddii raggii hore bay yidhaaheen saddex buu habeenka ku qahaye saddex baa ka daba yimid baa la yidhi saddex baa raggii hore ku hayaa la yidhi xogagaal xilkasnibo iyo xanla'aan xogagaal wuu ahaado
adeer baanan iyo magaaliyo meelo wax lagu kala qarsaa ma jira haddii laba neef la soo iibiyo intuu habarta u dhiba wada jiro ubbada inoogu shuba ma jiraabka ama abxadda annaga sanaaduuqdeedu abxad iyo jiraab iyo ohli iyo bay haayeen qumba iyo waxyaaba nooc ha iyo qumbaha iyo ubbada iyo baa lagu shuban jiray oo waxa uu dhiibo xilkas buu hayadun buu hayn jiray xogagaalna wuu ahaayo haddii galaan hadhuudhi caawa guriga yaal ama mid bariis yaallo ama inta miritaan wuu oga oo xogagaalna wuu haddee meel kale la kala qabtaa ma jirin salkiisa damee reerkiisu wuxuu qabaa buu ogaa xallaana wuu ku qabo haween ayaanu qabin nin lagu xantaa adduunka ma jiri jirin baa la yidhi adeer saddex baa ka dabayay banan saddexdaana saddexa dambe waxaa la idhaha baa la yidhi xero ma leh iyo xilmo saarra iyo xaalmo qabtaa la yidhaha bay xilmo saarra waa mid magaalooyinkaa iyo yimaado ayuu maalintii waxoogay helaya carruurtiisoo iska xaalxaal mastuuru ka soo kallahay wuxuu siisanayaa biidhigana ku waalateen iyo qaad carruurtiina wuxuu yidhi habeenkii fayruskoo ka madow waanay dhadhawin xilmo saarraa la yidhaha baa la yidhi xaalmo qabtaa yimid waa mid bishii walba naag isagoo furayaad qaadiga ku aragta baa la yidhi dee haddii xaal qabanaya naagtanu cisho walba markuu mid furo annaga dhaqankeegii ceeb bay ku ahayd iyo dhaqanka soomaalida maxay sameeyeen naaguma sariirtay kaga kaajeen iyo guriga wiiggii walba ma dadnima inuu naag fura waa dhaqan bi'is weeye waa dhaqan dumin ka ugu ladan waxa la yidhaha xero ma lehoo waxa la yidhaha ama dawladda ha u shaqeeya ama dawladda ka shaqaysta in qarash u haystaa laakiin dhowr guri baa isla baa la yidhi mid walba aduunbu kugu gooni yahay oo cidi kuguma u heliso ka ugu ladani waa kaasi baa la yidhi haddaba dhaqankii sidaasuu isaga daba imanaya annaga dhaqankayagu ekeeya waxaa la yidhi wuxuu yidhi aabbo inantaad maanta guursad aad soo aragtay bal ka warran inan qurux badan oo deggan oo aad u asluub la soo arka buuri aabbo inanta degganaanta hadalkeeda dawliilka quruxdeeda iyo dabacsanaanta kaaga muuqatay duntoodaad raacdaa ka fiican buu yidhi ood hiddaha iyo dhaqankeed ni hore raacdo ood ogaato aabbaheed cidda dhashay iyo hooyadeed cidda dhashay aabba buu idhi inantaa waa markii la odhan jiray aabba inantaad guursanaysaa jiif wiyilaad ha lahaato jin addoonna ha lahaato shaah muuminna ha lahaato buuri waa markii la odhan jiray waxaa la doonayaa gabadhaan inankeeda darka laga riixin aabba gabadhii waa keenay buuhi caawa oo waanigan inantii keenay haddaba aabba gabadha aad caawa keentay caawa waa muu buu yidhi oo waa marti oo waa magan oo adigay magan kuu tahay oo reer kanayta la keenaybay magan u tahay waa muu oo hadli mayso waa marti oo waxaana afka u gelin caawa cuni maysa buuhi waaba saw reerka looma soo guursan buuhi maxay cuni weyda aabba waa toddobaday cir yartay cod yartay camalsan tahay buuhi way xishoonaysaa hadli mayso oo waxay ahayd dee waxa la odhan jiray waa hadal badanta waxyaabo badan oo maanta qoladiina dambe ku faantaan ayaa xagga yaga ceeb ku ahaa ceeb waxay ku ahaayeen waxaa la odhan jiray tani waxbay cuntaa oo way cir way tahay laakiin maanta waa gabadh abateed haysa baad tidhaaheen adugu oo waxaa ku darteenba ammaan baa ka dhigteen ma maqasheen annaga waxyaabo badan oo ceeba baa jiray waxaa la yidhaha 4 hablood baa soo heermay kolkaas waxaa jiray 10 nooc baa dumarka loo guursan jiray horta inanku ruuxa dumaree ku soo gashaa 10 nooc unbay ahayd laba waxaa la yidhahaa sahan dumar oo sahankaa dumar maxay ku ahaayeen qola way heermi jirtoo hablaha iyagoo ay ku kalifayso yarad badan baa lagu xidhi jiray waa la xanibi jiray marka aynu ka soo qaadno heerinkaa markaynu ka soo qaadno waxaa la yidhi inan heerini hayb ma eegta baa la yidhi inan hadday heerin tahay iyadoo hayb ma eegta baa la yidhi oo kay heshaa waa nasiibkeed ama mid faruuran ha hesho ama mid dhagala ha hesho ama mid indhala ha hesho ama oday gabooba ha hesho heerin hayb ma eegta baa la yidhi mar hadday gayaanka isguursan jireen unu yahay iyadu kaasay ku dul dhacaysa
kolka afar hablood baa reer yimid reerkii baa sooriyeeyey aqal baa loo dhisay aqalkan oo kale waa la dhegaystay midi waxay tidhi intay sidaa u egtay alla kulula kaba naalle aan kaba fadhina intuu inoo qaboobayo ayay ka wad midna waxay tidhi na kadhan mayna kala go hore haa waayo shalay soo baxeen xalayna cid bay arag aad bay u gaajoonayaan caa way joogaan waxay tidhi naay hore inoogu kala gooy ha iska kululaade kadhan mayna kala go midna waxay tidhi alla kulula kaba naalle midna waxay tidhi naha gafoofe korka saar midna waxay tidhi naha qaboobe ku rid waa la wada dhegaysanayaa tii tidhi kulula kaba naalle iyo tii tidhi ha gafoofe korka saar halkii baa lagu guursaday qoladiina dambe oo annaga labada kale laba hunguri weyn bay noogu qoraayeen laakiin qoladiina dambe tan tidhi kadhan mayna kala gooyiyo iyo ta tidhi qabaweyn ku rid baa ka jeclaan lahaydeen baan u malaynayaao abateed baan haysaa ayay gabadhu ha leedahay iyo baan idinka maqlaa imaka waxyaabo laakiin annaga gabadh hunguri weyn bay hay oo heerinku noocaasuha mid kalea jirtayoo iyaduna nooca sahan dumar la idhaahdo guurka ka mid ahoo iyadu dadka kama dhaxayso nin bay soo sahansanaysaa ama xaasa lahaado ama yuu lahaan insha allahu 3 ha lahaado way u soo gashaysaa wy mar hadday soo gasho gabadhaas dhaqankeenni iyo hiddaheenni ceeb buu ha in la saaro haddii gabadhaa guriga laga saaro kontonkeedii waa in la raaciya reerka intaan reerkay ka dhalatayba ogaan ayaa reerkay u soo gashay qabeen inay rogmanayaan inan ilmada waa gurigii laga saaray haddii la yidhaa kolkaasi taasina waxay ahayd inanta leena way soo gashay oo nin bay soo sahantay tayadu oo labadaas sahan dumar baa la idhaa labana geeri baa keenta oo waa dumaasha iyo xigsiisanka dhaqankeenna halkay kaga fadhiyeen haddaba dhaqankeenna qayb uu axdhan bay ilaalinayeen dumaasha waxaa la lahaa carruurtiinnan iyay wareegin gabadha hadday reere kala guursato dhaqan murmur baa dhacaya carruurtiinna cid kaley noqonaysaa reerkii oo dhammi waa wareegaya hadday gabadh dhalba ku hadhaydha tahay oo weli ay de gabadh tahay xooga rasmi waa in la meheriyaa oo ninka cidu xigaa dumaala si degdega laakiin dhibaatay keeni jirtayoo dee gabadhii dumaasha ahayd waxay og tahay inaan toos loo soo guursan ninkan intani ku keentay wuu ku balfayaabay odhan jirtay iyaduna had iyo goor oofkay u gelin jirtay maahmaahda laydhaa nin xishoonayaa dumaal kama ilma dhalo nin dabqanayaa dumaal kuma galo dumaali walaalkaadoo dhintay bay ku caysiisaa dumaali waa inta laysu nool yahay dumaali waa inta laysu nool yaha layidhi dumaali waa ifka matalan nin dabqanayaa dumaal kuma galo baa layidhi ninka ku maahmaahay nin dabqanayaa dumaal kuma galo xoolii buu soo arooriyey harraadka iyabaa inoogu badnaa waxaa markaasuu idhi carruurta agoonta adhigooda ha loo hor waraabiyo waxay tidhi dee ma biyuu cabbe isagoo qarqarayaa la geliyey kuwa kale iyagoo diirsadaa la siiya amba waa la dul joojiyinho iyo inoo soo kaxeeya ilaahay baa jiree bay tidhi maalintii dambe wuxuuhi war xilliga u kulushay adhiga agoonta ha cabbi waxay tidhi hawada kawkamaa la leeya inaan wax ka hadhin baa la damxaye ha hilib carraala laga doonaya waxay keenide inaan wax ka hadhin baa la damxay hoyaan xeradayni ku qalqalana guriga inoo soo degdeg inoogu dhaqaasiyo wuxuu yidhi waar casarka gaaban waraabiya oo ka dambaysiiya xoolahoo dhan oo adhiga biyaa lagu fadhiisiiya soo inaan waxba ka hadhin lama damcin waa inuu cidhib tirmaaba oo sanadka dabaqda warsataan ama laydin qaraabadaa hooya lagu talagalay ilaahayse waa jiraa inoo soo kaxeeya bay tiri kolka waa sidaa idhaahdaba eedama maqasheen dumaal bay ahayd baa layidhi oo nin dabqanayaa dumaal kuma galana waa layidhi haddana waa laga qarmi waayey inay sidaasi la sameeyo dhaqankeenna xigsiisantaa timid mar haddii ninkaasi reerkii uu ka guursaday inantii dhimato reerkii inantu ahayd carruurtii wuu ka dhaxeeyaa iyo carruurtii waa ka dhexaysa iyo reerkii dhalay inantoodu reer carruurtay dhashay ma oggola inaa kala dagaasho walaasheed miday edda u tahay miday habaryar u tahay ta u xigto waa in loo keenaa carruurtii oo ninkii xigsiisan looga dhiga iyaduna halkaa dhib bay ka qabtaayoo xigsiisan xulasho mele baa la yidhi labana waxaa la yidhi waa boobka ama waa dhaca
oo labadaasi waa maxay waa inanta lala tegaayo oo marka inan lala soo tago ee reerkoodii laga soo boobo dee reerkii raalli kabahe waa la soo dhacay horta waa geel la dhaco kale haa kolkaa mid kalaa jiri jirtay oo taasi waaba heshiiseenoo waa wada hadasheenoo raalli ay haydeen mid la odhan jira dhawar garaac baa jiri jirtay had iyo jeer dhaamankaa lagala hadhi jiray dhaamanka iyo safarrada iyobaa ay adeegan jirtay inan qurux badan 4 xoog waaweyn oo farda wato ilmaadirtiinna waad kaxaysan jirtay 4 adin unbaa la qaban jiray wadaadadii waa weydiiye waxaan waaraaraada su'aalo waarhaadhe meerka cadarkaa xaggee looga heli jiray kolkaa dhaqan bay ahayd iyadu dhaqanka noocaasa oo labadaana boob ama dhac baa la odhan jiray labana waxaa la odhan jiray bogsiin oo waa xigsiisanka iyo godobreebka oo inantar laba reer markay isdilaan ee la doonayaa in nabadi ka dhacdo waxaa la geyn jiray inan godobreeb la yidhaah markaa raggu isu wada cadhoonaya afka la buuraya nin walba odaygiisii inan walba odaygiisa shaabuugka dabada kaga wado meel xijiritaal xarraga ma taal baa la yidhi waa maalintaan nina isweynaynin eanu nina isqaadqaadi karin waayo nin waliba inaad arrintan ka xuntay aan lagaa dareemin bixitaa ayuu iska dhigaya waxaa kaloo la yidhi meel xinjiritaal xabnaha yaallo oo meeshii dhiigga raggu ku daatay waa inananti ku umushaa oo ilma ku dhashaa haa oo ninkii aabbihii la dilay ama walaalkii la dilay ama adeerkii ayaa inanta sida kay ku taallan nabarku waa inanta la siin jiray godobreeb baa la odhan jiray mid kalaa jirto iyaduna godobreebkaasoo bogsiinta ahoo waxaa la odhan jiray ku qaado baa la odhan jiray ku qaado haddaba ku qaadashada dhallinyaradu waxay u taqaanaa inan la fara xumeeyey adeer ma ahayn ta u sahlan bay ahayd berigii hore ilka iyo indhatoona lama bedeli jirin quruxdaada wuxuu dhiba khadaadku u ritaa baa la yidhi maaha soomaaliyaa jirta haddaad intaa jaaha wax ka yeesho ama xooggay ku soconaysa wax u dhinto inantii quruxdeeda wuxuu dhiba khadaadkuunbuu u ritaa baa la yidhi oo taasina inantii uu sharafteeda wax u dhibay noocu doonaha ugu dhibee isaga uun baale haa labada u dambeeya waxaa la odhan jiray guurka tooska ah oo ama inankiiyo inantu intay heshiiyaan baa reerku isa siin jiray waxay ahayd intay labadaasi labada waalid ma isa siiya kuwan isla tagee dambe imika waxaan hiba loo soo doonin bal ma jirta adeere waa hibun baa loo soo doonaa beryahan damboo dhane ee labadan tooska waxa weeyaan taa inantaa labada reer isa siiyeen ee labadii waalid labadii carruur ahaa iscaashaqeen ama laba reeroo awalba isku xidhnaayoo labadii waalid labada carruura isla dooneen hayn haasaa waxa rag iyo dumar iskumuu jiri jirin anigu haddii aan doono markaan inan doonayaan haasaawo taga maanta inanta waxaan uga bilaabayaa haasaawaha inan yahay dee waxaa la yidhi inan dhinka dhali karaa dhiqi karee dhallinyaradu waa isla buuqaysaa baan uga bilaabaya haasaawaha inankanina wuxuu uga bilaabayaa isagoo aniga gaashaanka igu dhufanaya aynigayga naayo waxaa la yidhi dhalidhindhaban bay ku taalla dee dhuuniyuu koodin yaaraday waxoogay haystaa kaa dhirbaaxin buu leeyahy oo isaguna waa kaa dhallinyaradii u hiiliyey odayoo dhan marada u riday inantanaa ku socota inantaa dawacda inay guursato nin xaas leh waxay leedahay dee ninkii rag ahaa naag ma haysta nacaasna looma socdo haddeeg iyaga oo dumarku aad u neceb baa la yidhi ninka xaas kale ayaa haddana markay soo sahansato nin xaas leh ayaa waxay odhan jirtay ninkii rag ahaa naag ma haysa nacaasna looma jeedo hadda nacaybka dumarkuna halkay ka joogeen raggii hore dhaqanka iyagii hore guurka labaad waxaa la yidhi sarar iyo sakaarsiya odaybaa sareeda leh waa markay soo caashaqayaan odayga weyn ay doonayaan nin gurinay ku socdaan haddana waxaa la yidhi naag baa u timid reero waxay tidhi reerkoodii ninkii uu iga hawlbata ha la iiga taliyo oo muxuu kuga hawlbata waa dhul badanya waan adkaysan waaya reerkii baa shiroo waxaa la yidhi bala ka soo tashano go'aan baa la soo gaadho waxaa la yidhi waa ninkani naagtaa waxay ka soo dacwootay
mid hawsha la qaybsata loo guuriyo baa la yidhi suuxiyaa loo yeedho waxaa la yidhi hawsha mid kula qaybsata ayaa inaynu u guurin aanu dawacnay gabadhii waxay tihi tala hagaagsan miyaa garan weyday mee waad soo dacwooto waxay dhi waa hawl bato mid hawsha kula qaybsataan inaynu u guurinnaa ayaanu dawacnaa la yidhi mar haddaad tala hagaagsan garan weydaan haatanana iskala silxiye iska daaya bay tihi anaa iskala silxi doonee iska daaya bay tihi oo guurkana halkaasay ka taagnaayeen haddana markii ay ku socdeen waa kuwaa yidhi sarar iyo sakaarsiiyo wadaybaa sareedo leh ninkii rag ahaa naag baa haysa dhinacaasna looma jeedo marka ay damceen inay guursato mid waxoogay iska meeldhexaada faysal oo kale faysal fadhfadhloo kale damcday inay guursato oo asay leedahay haddee odaybaad guursan naa oday maaha waa la leyli aan la laasan waa la leyli aan la laasan guri horena wuu arkay laakiin de waa dhallinyaradisi waxba kama dhinmin bay leedahay mid baa wuxuu ku socdaa inan mar dhashay ama laba dhashuu guursaday warda waxa la yidhi habar baad guursan war habar baan guursanno waa haan galaan la daray bay ama waa haan galaan la daray ama waa jooyad galaan la daray haasaa u adeer iskugu jiri jiray oo sidan iskugu dhex daadsanayn wuxuu ahaa uu kala socnaa waddooyin buu kala haystay marka aynu ka hadlayno weli inagoo dhaqankii xagga haweenka ku soconna waxay soomaalidu ohan jirta bilcantaadood ka hadasho bahla'aan baa leh bishaadood cuntarag baahi baale baa la yidhi bilcantaadood ka hadasho gabadhaad guursanayso marka aad ka hadlayso aad usoo geed fadhiisanayso waa in qabiilkaagu ku soo raacaa oo walaalkaa aabbahaa adeeradaa almaadeeradaa ka hadlaa oo inantaa ina hebel inan kara lanoo siiya la yidhaah haddii la waayo tolkaa waa in reer aftigaa ku weydiya ladha inan kanayno aftiga u nahay baanu u doonaynaa inantaas ha la siiyo labadiiba haddii la waado oo tiraa inantaasi ina hebel ha lay siiyo waxaa la ogaanayaaba la ogaan jiraa layidhi garan jiray ninkaasi inaanu cid iyo ciirsi toonan ahayn oo bahla'aan baale baa layidhi bilcaantaadood ka hadasho bahla'aan baale mar haddaad tiraa inantaaba ha lay siiyo tol iyo taagna cidla ka taagantaa la ogaan jira geed cidla ka baxay tahay ha bishaadood cuntana baahi baale baa la yidhi bisha malaha idinku waxa u taqaanay bisha yar iyo xidigta soo baxdae bisha waxaa la odhan jiray annagu dayax baanu idhahnaa adeertan soo baxa oo dayaxi galabtaba bishaa la odhan jiray bisha waxaa la odhan jiray inanka iyo inanta marka la isu meheriyo hawsha la dhammaynaayo ayaa neefka inantuna afarta addin bay qaban jirtay inankuna bilaawuhu marin jiray waa bishii hebel iyo heblaayaa la odhan jiray bisha horta neefkaasaa la odhan jiray innagu dhawaan ubaa nala soo gashay nadar bilahane iyo sannadaa annagu bilo gooniya iyo sannadaanu lahayn kolkaa neefka ay gowraceen labadaa ruux bakti kamuu hayn oo diinteennu kama xaaraantinimay laakiin haddii ay dhadhamiyaan waxa la odhan jiray alla bishoodii way cunaan adduunka ceeb bay uga bixi jiray laakiin dee reerkii haddaan wax kaloo la liqaa joogin qasab weeyaan inay reerkii wax ka cunaan neefkii dawladdii soo maaha iminka ayagaa arooskooda muusoo ka ciyaareen adeer waa rune annaga kolkii hore waxay ahayd inaanay dhadhaminin laakiin mar haddii la yidhaa reerkii hebel iyo heblaayo ka warrama wallaahi bishoodii bay cuneen neefkii lagu meherka ay wax ka cuneen haddii la yidhaa waa in gacan u loo fidiyaan cidi gacan u doonan reer yaradu doontaa jirin wax loo geeyo mooye mid toloo wuxuu doontaa jirin wax la tara mooye mar haddii la yidhaa bishoodii bay cuneen reerkaa wax ka xaaraan yacni waa baktiga u xaaraana bay ka dhignay reer rogmaday buu ahaa kolkaa bishayada annagu taasay ahayd sanadkeega adeer rawrish baa la odhan jiray bishan gaaladu tidhaaho julaay 23 gala sanadka soomaaliga ah ee hiddaha iyo dhaqankeennu nawriish baa la yidhaa dabtuur waa la yidhaahaa hadba iminka bishii hore ee gaalada ee ina dhaaftay bilgaalaadii ina dhaaftay ee julay bay adeer odhan jirteen 23 arbacadii gashay buu ahaa sanadkani waa nawriish arbacaad sanadka iyagu waa 365 habeen weeye sanadka soomaaliga ah idinkuwa maxaligaa ku gargaraaci jirteen ku xisaabiya bisha habeenkaa u galay arbacuu galay saw kumaan odhanin arbacadaasi 53 arbacaa gelaya sanadkan 6 habeene kalena min 52 bay gelayaan hadbay isu geen 6 meeloodoo min 52
وصدح بقولي يلا ما يتبر هبين لحمة لودهم من لما يكنتر أربعة وصدح يكنتر صدح يكنتر يسد صدح بقولي يلا ما يتر وصدح بقولي شري اللي إحنا كاهبين أنت عند شيء أنت هسوها وضايق بقولي اللي حيات صدق شري وإمك كنول وموسى إسماعيلة قبيل خلايرا ورقة تاريخها آذان وقصة قرية أيام ويدي وحول عامها يوم بقولي يلا ما تنقاري وعي ورمي ولي قيل نورش كانوا ينتهسوها نقاسوا أنك السرعة يقطي أشورين بساطي لحية سديتك كيوه مرقصان نوحانا هاي كنتو نيكو أسوري قلما أن مقع على هاي ما سرعي دين كشيو خاصان عذر قلمدو أن مقع على هاي نوام حي كل كاسوري أنقو waxaan oran jiray galma waa 7 ka dhigaa isaga yaqaan adar maxay ahaayeen baalid waxaan oran jiray wuu xilli arag iyo xaraga xilli arag iyo xaqarag iyo xaaja arag iyo xurmo arag iyo xiisa arag iyo xiraad arag iyo xal arag baa la oran jiray wuxuu labada reer kolkay isguursadaan xilli ma laho xilli baan oran jiray habeenka xaajadu ka maydhatana xaq baan oran jiray هذاك أفرتم بحداي ومشنا حاجة نورن جريول دمر كوي ديغة دورن جرين بويل مركا أي ديغة دونتان خير كودا يحولك كيري جرين هلا عمرك كنتنا حرمة هذين كان نورن جريول هذين كان دوكم ذال كتب هذا الله رورتي وكين يدعروا أبطرهانا هذين كان حيصة نورن جريول هذين كان قعان كان عدد الدشنة حال با نورن جريول وده هدي مركا الدشو أظهر كدن فايسيسو هذا الكين اللي ما بغلي تشرين بول توقد دن فايسا وتوقد له تحرات بالورن تشرينه مركي دالي يدي يقبل لابطه تعذر بشي هذا تواري واحترستها بول هذه يدو هذه كلا درجاكم مرخ يلين ما يجو أنا ذا الشيخ هذا يدساس هذا روحي بسرعة دقا كيابو يسكمو يشري ما أنت صار بحين إنك سوي دوني اللي بدأ قبيل بايس هي أنك لقبنا نورن شري عويس كجبديسي